someday I'll make it right. ninku aad buu u ixtiraamay xaaskiisa, xitaa kabaha ayuu u gelinayaa, laakiin xaaskiisu waxay u baxaysaa nin kale, ma ahan isaga. ninkaas magaciisana waxaa la yidhaahdaa Joel. ugu dambeyntiina markii ay xafladii tageen, xaaladdu waxay ahayd mid buuq badan, waxayna iska siibtay jaakadeeda, waxayna muujisay dhar qurux badan. kadib xaaskiisu waxay si toos ah ugu orday Joel, waxay iska indhatirtay ninkeeda sidii inuusan jirinbo. dadka hortooda ay isku qoslayeen, isku dhawaanayeen, iskuna taabanayeen. ninkeedana si qarsooday ay u daba socdaa, isagoo xanaaqsan. waar wuxuu dhiig ma laha miya? kadib waxay go'aansadeen inay dadka ka fogaadaan. waxay aadeen meel qarsoon. ninkan wuu daba galay, wuxuu ka daawanayay meel fog. wuxuu arkay ayagoo isku dhow oo isbaashiinaya, waxa ayna muujiyeen xiriir qoto dheer. xaaskiisa way ogtahay inuu daawanayo, ma isaga ma laba waa yaabe. dad kale ayaa arka arrinta oo su'aalo weydiinaya ninka. ninku been ayuu sheegaa, wuuna qariyaa xanuunkiisa. wuxuuna rabay inuu waxyeeleeyo Joel, laakiin wuu isxakameeyey. kadib haweeneyda ayaa ku tiri mis jecel yihiin. ninkan wuxuu yidhi waa saaxiibo, laakiin haweeneydu ma rumaysan oo waxay dareemaysaa murugada ninka. kadib Joel ayaa u yimid ninka, wuxuuna ugu mahadceliyey si jees ah. haddii cuni karin, haddii cabi karin, bax iska bax anaa ku cunahay. wuxuuna u muuqday inuu ku qoslayo, laakiin dibadda waa uu iska dejiyey si aan loo dareemin inuu xanaaqsan yahay. ninkan waxa uu ku xanaaqay gudaha. wuxuu sheegay nin la waayay oo la yiraahdo Martin, adna ha iloowi inaad muuqaalka like saarto. kadib wuxuu yidhi aniga ayaa dilay Martin. tanina waxay ahayd hanjabaad. Joel markii hore wuu qoslay, laakiin markuu arkay runta aad ayuu u baqay. wuxuuna ku beeray cabsi si uu uga tago xaaskiisa. haddii kale hadda shumisay maraya, markii xigtana waxay noqonaya in ciyaar bilaa muusig la ciyaaro. kadibna Joel halkaasi waa uu iskaga cararayaa. wuxuu u carari waayay ilaa waxaa lagu hanjabay haddii uu gabadhan ku fogaado in la dilayo. ninka kordheer ayuu ka daawanayay Joel oo sii baxaya, laakiin xaaskiisa ayaa ku dhagnay. malaha ninkeeba ku walacday, bas uma jeedi miyaa ninkeeda maxaa ka qaldan. kadibna aad iyo aad ayuu carootay. kadib waxay xafladii ugu soo baxeen iyagoo aan dhammaysan iyo xaaskiisa oo caraysan. daawada adna ha iloowi inaad muuqaalka la gareyso, page-kan aad follow gareedo. mahadsanid. intaasina waxa ay tahay dhiirigelin. kadib markii ay guriga tageen, xaaskiisa waxa ay bilowday oohin iyo caro ayadoo aan tixgelin dareenka ninkeeda, waxayna ku qaylisay ninkeeda. ninka wuxuu iska dhigay nin wanaagsan oo degan. kadib maalintii dambe guriga ayuu ku casuumay Joel, taasoo muujinaysa sida uu ula qabsanayo xaaladda. gabadhiisa ayaa jikada ku weydiisay ninkana waa iyo wuxuu u sheegay in saaxiib la tahay hooyadeed. xaaskiisana waxay dib u muujisay farxadeeda iyo jaceylka ay u qabto Joel. xitaa waxay wax ku cunaysay farkeetigiisa, taasoo muujinaysa rabitaanka iyo daacad la'aanta. ninka wuxuu noqday mid caajisa, maskaxiyana daalan. habeenkii saqdhex markay ahayd, ninkii ayaa soo degay. haddana wuxuu mar kale arkay ayagoo isku dhow, waxna ma ka bedeli karo. tan camal wuxuu ku fiicnayd Afrika in la keeno, ileen Afrika dumarka sida rabaan looma yeel inta badan. laakiin ma dhihi karna xaaskiisa inay saan samayso waxa sabab u ah isaga. maalintii xigtay bangiga ayaa soo wacay, waxaana loo sheegay in lacag loo diray macalinka biyaanada. waxaana soo baxay nin kale oo la yiraahdo Cray Castle. xaaskiisu waxay la xiriirtay rag kale oo badan, taasoo muujinaysa xaaskiisa inay xiriir cusub la samaysay macalinka biyaanada. ninkana aad buu u xanaaqay, waxa uuna dareemay cadaadis iyo carad daran. subaxii xigtay iyadoo dhowdhow ayay guriga imaaday. ninka ayaa isku dayay inuu weydiiyo meesha ay joogtay, balse xaaskiisa ma aysan ka jawaabin. waxayna si toos ah u aadaysay sariirta, ilaan ayada waa qof cabsani. ugu dambeyn dareenkiisa ayaa kacay, waa uu ku qayliyey. wuxuu weydiiyey maxaad samaynaysaa. hadalkiisa deganna waxaa ku daalay xaaskiisa oo waxay doonaysay kacdoon iyo xiiso, waxayna u baahnayd khilaaf iyo khatar. isaga oo keliya ma dhihi karaynin. waxay ku booday barkada iyada oo la jirta macalinka biyaanada. macalinka biyaanadan waxba ma oga. run ahaantiin waxa uu ku fikirayaa dil. si lama filaan ahna roob xoogan ayaa bilaabmay. dadkii oo dhan waxa ay galeen gudaha si ay uga baxsadaan roobka. waxaa keliya ku haray isaga iyo macalinka biyaanada. waxay ahayd fursad dahabi oo uu ku faa'iidaysan karo. wuxuuna bilaabay fikirka argoosi iyo xisaab celin.